dareen cabsi iyo waliba walwal isugu jira muujinaya shaqaalaha rayidka ah ee hay'adaha dawladda u shaqeeya iyo sidoo kale ciidamo sheegay in hubka dhigis lagu sameeyay oo ka cabanaya laftirkooda inaysan awood siin karin in wadooyinka aan xirnayn ee magaalada meelo ka mid ku yaala ay isticmaalaan sabab amnigooda ah goobaha xiranna loo diiday xitaa haddii aqoonsiyadoodii ay la soo baxeen waa kan qof ka mid ah shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya u shaqeeya oo iga codsaday inaanan shaacin magaciisa walaal shaqaalaha dawladda dhamaan waxay ku sugan yihiin xaalad amni darro xaqiiqda marka laga hadlo jidadka isku halay jireen ay ku arki jireen ciidamada dawladda dhamaan waa laga celiyo shaqaalaha dawladda waxa lagu leeyahay xildhibaan iyo wasiir bas la fasaxaya shaqaalaha dawladda waxa farta loogu fiiqayaa maaragtay inay aadaan bakaaraha iyo meel xitaa ciidanka laftirkooda amnigooda ay sugneen maalin walba warbixino xun laga soo sheegayo aad waxaan ugu dhib karnaa jidka dadka iyo meelaha la midka shaqaalaha dawladda waa laga celiyaa gurigooda haday habeenka u hoydaan subax soo ma shaqatay karaan waxay noqonaysaa inay soo lugeeyaan marka meelaha amni darrada haday baabuur wataan in loo tilmaamo la yiraahdo bakaaraha iyo meelaha Soomaal markay wadada wadnaha ku soo dhacaan meesha wadada wadnaha ka soo jari lahaayeen waa laga celinayaa dhamaantood ma la kulmeen ciidamada wadada u xiran tahay intay u tagaan aqoonsiyada tusaan miyaa la yiri laabta misa uma helaan fursad waxaan ku leeyahay idikaar la aqbalay waxa ka jiro xildhibaan iyo wasiir inta kale waxa lagu leeyahay shaqaalaha dawladda kulli ma wada yaqaanaan saraakiisha xasilinta u qaabilsan yani jaqboontiyada ma wada garanayaan qofka aqoonin waxa noqonaysaa kullaaba gurigaaga hatta darsigana waa lagu xaadirinayaa maaragtay meeshii shaqada aad ku lahayd aadaan ugu dhib qabnaa anaga kaliya maahan awal dawladii ka horeysay waxaa ixtiraam gooni lahaan jiray shaqaalaha dawladda idikaarka daatusto oo ay ku gudbin jireen oo inta ku fiiriyaan maaragtay idikaarkaaga hubiyaan ay ku xaqiijiyaan ku sii deynayeen hadda kuwan hadda tirada warbaaburka baaro shaqaan ka daafsanahay amar baan qabaa taliyaha gobolkan ka qabaa saanan ka yeela waa aad baan ugu dhib qabnaa walaal fara badan haysta mas'uuliyiinta dawladda waxaan ka codsanaynaa in shaqaalaha dawladda sidan loo dhaamo oo maaragtay ixtiraam iyo maaragtay shaqadooda loo fududeeyo waxaan ku weydiinayaa shacabka dhib qaba shaqaalaha kaliya aan u hadlin waxay ku qancaan ma loo sheegaa marka sababta inta wadooyinka loo xiro xildhibaan iyo wasiir kaliya loogu ogolaaday inta kale la midka ah dawladii u shaqeynaya target ah ama la raadinayo loogu diiday sabab aad macquul wad ku qancdaan ma lagu sheegay shaqada amara qabaha ku leeyahay askariga marka hor istaagto walaal amara qabaha ku leeyahay amarka aad qabto warheed dadka aad ilaalinayso soo kama mid yihi soo dadka aad maaragtay amnigooda doorayso kama mid yihi wuxuu ku leeyahay aniga amar baan qabaa amara qaba meel ku dhaafta malaha amar baa yani waxa arkaysaa maalin walba ciidamada dawladda way isdilayaan waxay isku dilayaan waa midaas oo kale shacabkii wallahi inaan ku sheegin waxa jiro naaga يعني كوم جاكبونتيدا هورتودا oo baabuur iska dhaafa bajaajada xitaa la gudbilayahay ma naqaan cuqubada meesha ka haleeshay umada marka dawladda madaxdeeda waxaan ka codsanaynaa inay il naxariis leh ku fiirso shacabka iyo shaqaalaha dawladda yaa kale warka haya shaqaalaha dawladda ka mid tahay wax waran ma ka haysaa ciidamadii hubka laga dhigay laftirkooda noloshooda xagee ku dambaysaa ma mari karaan wadooyinka maya waxa weey walaalow aad baa loo dhib qabaa dawladda waxa waaye ciidankan hadda xasilinta la leeyahay magaaladii aad maaragtay ariir u geliyeen marka aad fiiriso jidka marka mukarrama oo mashquulka banaa jiray yani waxa arkaysaa baabuur shirkad ah oo yar ama hal ama labo oo markaas ma naqaan xildhibaankii ma uu waa fahmi laanahay hal baabuur laba baabuur marayso magaalo dagaal u ekaatay magaalo rabshad u magaalada wuxuu ekaatay laga qaxay marka waa fahmi laana marka mukarrama waxa furuntu ka dhigay waa fahmi laana dhibaatada noocan ayaa markii wadooyinka la xiro shacabkii u gaar ahayd oo aan dawladda ka mid ahayn shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo xubnaha kale jooyada ama hay'adaha u shaqeeya xafiisyada hay'adaha qaramada midoobay oo kale magaalada meesha doonaa bay ka mari jireen mar haddaanan xilliga hadlin oo aanan dhihina shaqaale dawladeed aan shacabkan ku noolnahay wadooyinka culayska laga qaado hadda dhibku markuu idin gaaray oo aad cabanaysan oo shacabka la mid noqoteen rajadiina xagee way markii wax laga qabto hadii tii shacabka laga jawaab waayo idin aad ka hadli weyseen walaalaha naga amniga in la ilaaliyo ma diidanin waxaan ugu dhib qabnaa waa on shacabka awalna waa la qabnaa shacabka waa hooyadeen waa walaasheen waa wiilasheeni waa gabdhaheeni waa dadkeeni waa wixii iskuulada aadayay waa wixii duruufaha iyo danaha adduunyo ay ku xiriireen
awalna ma moogeen oo awal annaga maaragtay laga yaabo in ay dhikaaradeenna aqoonsiyadeena ku deyno hadda dhikaaradeenna xitaa waa shaqayla yihiin waxa waaye eheladii iyo qaraabadii dadkii awalna soo wici jiro mararka qaar aan furdaami jirnay oo aan wejigeena iyo aqoonteena iyo dhikaaradeenna aan ku dayi jirnay xitaa hadda waa geysalaana annagina way nagu imaaday dowladda waxaan leenahay wasiir iyo xildhibaan keliya ma noqon karo yani shaqaaladooda waa 10,000 oo qof waaye 10,000 oo qof waaye inta ku hoos noolaa ka badan ciidankiia ka badan intii oo dhan waa loo diiday marka dowladda waxaan ka codsanaynaa oo leenahay oo shacabkana ha loo furo annagana ha noola furo oo in naxariis la dowladda shaqaalaha ay kusoo fiiriso iyo shacabka aad baa loo qabaa markaan amniga maaragta waa fahmi la'na xaaladda meesha loo wado ma shacabka iyo dowladda la iska horkeeni rabaa waa fahmi la'na qof ka mid ah shaqaalaha dowladda oo dareen cabsi iyo waliba walwal isugu jira muujinaya